السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا ماريسا علي اوفيشال هاداد ku cusubtahay subscribe noo saar like share commenti daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkii la magac baxay wax ka ogow shaqsiga caanka caalamka aan kusoo qaadanay inta badan shakhsiyaadka caanka ah waxaa maanta miiska inoo saaran aktarka lagu magacaabo Akin laga yaabo inaysan Soomaalida inta badan u aqoon magacaasi magaca ay Soomaalida u yaqaanaan waa Miranshaad Oglo waxa uuna waday filimka Harjay ee dhamaaday haddii aan guda galno taariikhdiisa magaciisa dhabta ah waa Akin naaneystiisu waa Akin waxa uu dhashay 22 September 1990 da'diisu waa 30 jir waxa uu ku dhashay caasimadda Ankara ee dalka Turkiga shaqadiisu waa actor iyo model dhalashadiisu waa Turki diintiisu waa Muslim haddaan guda galno qaab dhismeedkiisa dhirirkiisu waa 1.8 mitir fiid ahaanna waa 5 fiid iyo 11 inji culeyskiisu waa 75 kilogram indhihiisa kalarkoodu waa hazel ama qaxwi ku jira cagaar timihiisa kalarkoodu waa brown ama qaxwi dhanka waxbarashada haddaan guda galno collegekiisa waxaa lagu magacaabaa Ted Ankara College waxa uu ka baxay jaamacad ku taala California oo lagu magacaabo UC Berkeley Santa Monica University oo ah jaamacadaha ugu casrisan waxa uu bartay ama bachelor degree uu ku qaatay mathematics ama xisaabaad dhanka familkiisa haddaan fiirino hooyadiisa waxaa lagu magacaabaa Özlem Akinzu aabihiisana waxaa lagu magacaabaa Tamir Akinzu walaashiisa lama yaqaano ama walaalkiisana lama yaqaano waxyaabaha uu xiiseeyo ama hobbigiisa haddaan fiirino waxa uu aad u jecel yahay wax akhrinta muusig dhageysiga iyo safarka Akin waxa uu jilida ku soo biiray 2014 Akinzu waxa uu jilay oo kaliya taxanayaal ama musalsal wax film ah ma uusan jilin taxanayaasha uu jilana waxaa kamid ah 2015 Muhtashim Yuzil Koshim taxanaha la magac baxay ayuu jilay magaca Ivan Ali ayuuna ku jilay 2016 Arka Dashlar iyo dir musalsalka la magac baxay ayuu jilay Yunis Jalani ayaana ku jilay 2017 Aslan Elim taxanaha la magac baxay ayuu jilay magaca Murad Aslan ayuuna ku jilay waxaana uu ka ahaa hogaamiye ama actor waana taxanihii ugu horeeyay uu actor ka ahaa isla sanadka 2017 Bayita Abdulhamid taxanaha la magacaabo ayuu jilay magaca Umar ayuuna ku jilayay inta u dhaxaysay 2019 ilaa 2021 waxa uu jilay taxanaha uu ku soo caan baxay magacana ku yeeshay abaalmarino fara badanna uu ku qaatay ee Harjay waxa uu ku jilay magaca Miranshaad Oglo actor ayuuna ka ahaa taxanahani dhanka abaalmarinada haddaan eegno 2019 shirkadda Bermeza Nova Mas and Master Nova 3 ayaa siisay biladda Best Actor in Drama Series ama actorka ugu wanaagsan ee taxana jilida filimka Harjay ayuuna ku qaatay isla 2019 Golden Objective Awards 4 ayaa siisay biladda Best Actor in Drama Series isla actorka ugu wanaagsan jilida musalsalada 2020 Gotham Butterfly Awards 5 ayaa u magacawday Best Actor iyo Best TV Cable inuu yahay actorka ugu wanaagsan jilista filimada iyo lamaanaha abaalmarinadani oo idil taxanaha uu ku qaatay waxa uu ahaa taxanaha caalamka qabsaday ee Harjay su'aasha aad isweydiinayso ayaa ah Akin qamri iyo sigaar miyuu cabaa lama hubo balse waxa lagu xantaa in uu sigaar cabo balse lama oga in uu qamriga cabo ugu dambeyn xaas miyuu leeyahay Akinzu maya xaas ma lahan balse waxa uu xiriir la leeyahay muddo 7 sano ah gabar lagu magacaabo Sandra Bestmaisiana haddaan fiirino taariikhdeeda gabadhani waxay dhalatay 1995 Istanbul ayay ku dhalatay waxa ay ka qalin jibisay Yeza School Istanbul Technology University ay ka qaadatay bachelor degree waxayna baratay economic ama dhaqaalo sidoo kale New York State University ayay ka baxday waxayna xiriir wada leeyihiin muddo 7 sano ah Akinzu taariikhdiisa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa daawadayaal inta aan ku kulmi doono actorka xiga ama atrishada xigta waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh